waxa aad loo hadalhayaa xubnaha golaha wasiirada xukuumadda cusub ee uu soo dhisi doono madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro oo dhawaan ku guuleystay doorashooyinkii isasaarka ahaa ee horaantii bishan ka dhacay Somaliland. Yuusuf Nuux Tarase waxa hogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga wadani muddadii uu xisbigu ahaa mucaaradka waana mid ka mid ah mudanayaasha loo saadalinayo inay ka soo muuqdaan liiska xukuumadda uu soo dhisayo madaxweyne Cirro. warbixintan waxaynu ku eegaynaa Yuusuf Tarase muddadii uu ahaa xogayaha ciyaaraha mucaaradada adkayd iyo dhaliilihii uu kala hortagi jiray xukuumadda aqoonta uu leeyahay sportska iyo inuu yahay shakhsi ku habboon oo hogaamiyaha cusub ee la doortay uu xulan karo hogaaminta siyaasadda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumaddiisa. Yuusuf Nuux waxa uu ku dhashay Hargeysa waxaana uu ka mid ahaa dhalinyarada ku soo barbaartay garoomada kubadda cagta magacana ka sameeyay xirfadiisa oo sarreysay awgeed waxa uu ka mid noqday ciyaartooyga xulka gobolka Maroodijeex ee sabtay sanadihii 2001 ilaa 2004 waxaana lagu xasuustaa guushii xulkaasi uu gaadhay sanadkii 2002. wuxuu sidoo kale soo noqday kabtankii kooxaha Denia Club iyo Soyaal taasoo u suurtagelisay in xilligii uu ku jiray garoomada kubadda cagta uu ka soo ciyaaro dhammaanba gobolada kala duwan ee dalka. tan iyo waqtigaasi waxa uu ku jiray arrimaha la xidhiidha ciyaaraha ilaa uu noqday sanadkii 2019 xogayaha ciyaaraha iyo dhalinyarada ee xisbiga wadani waxaana waqtigaasi magacaabay Cabdiraxmaan Cabdilaahi Cirro madaxweynaha la doortay ee Somaliland oo waqtigaasi ahaa gudoomiyaha xisbiga wadani. waxaa lagu bartay haladeeg badan oo uu kala hortagi jiray siyaasadda xukuumadda ee dhalinyarada iyo ciyaaraha muddadii uu xogayaha ahaa taasoo cadays badan saari jirtay wasaaradda arrimaha dhalinyarada iyo ciyaaraha u qaabilsan xukuumadda banaynaysa xafiiska. sidoo kale waxa uu doodo adag ku wajahay xuquuq kasta oo la duutiyay bahda ciyaaraha kuwaas oo uu ahaa afayeen iyo caroog u bidhaamiya waxa ka maqan waxayna taasi u soo jeeday inuu xidhiidh wanaagsan la yeesho dhalinyarada iyo bahda sportska. intii uu xogayaha waxa uu suurtageliyay in hoggaanka xisbigiisa iyo dhalinyaradu ay helaan marin ay iska gaari karaan gaar ahaan madaxweyne Cirro iyo bahda sportsku waxayna inta badan kooxaha ka dhisan Somaliland ay fursado u heleen inay la kulmaan baahiyahoodana ay u sheegaan madaxweyne Cirro intuu uu musharax ahaa. muddadii uu socday ololihii doorashadu waxa uu xogaya Tarase suurtageliyay inuu qabto tartamadii ugu baaxadda weynaa ee laga qabto dalka oo dhan waxaana ka mid ahaa koobkii Cirro Cup oo ay qaadeen kooxda kubadda cagta ee degmada Qorilugud iyo koobkii guusha oo madaxweyne Cirro oo markaasi ahaa murashaxa xisbigiisa uu ka furay magaalada Balligubadle ee gobolka Hawd. heshiiskiisii dib u dhiska garoonka Xawaadle waxa uu ahaa mid ka mid ah mashaariicdii ugu ballaarnaa ee madaxweyne Cirro uu ku golay ololaha doorashada madaxtooyada kaas oo uu ku kasbaday codadka boqolaal da'yar ah oo uu kaalin weyn kaga jiro garoonkani noloshooda. xogaya Tarase waxa uu ahaa maskaxdii ka dambeysay fulinta mashruucan iyo rumaynta rajada dhalinyarada garoonkaasi ku badadaasha. tan iyo markii uu doorashada madaxweynaha ku guuleystay xisbiga wadani waxaa jira baaqyo kala duwan oo ka soo baxaya bahda ciyaaraha iyo dhalinyarada kuwaas oo ka dalbanaya madaxweynaha la doortay ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro inuu xogaya Yuusuf Tarase u cugto wasiirkiisa dhalinyarada iyo ciyaaraha. dadka dhalinyarta ee sportska juhdiga galiyay xisbiga wadani muddada badan la socday ugu horeeyo Yuusuf Nuux Yuusuf Tarase noo magacaabo moogala dhigo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha waliba ku xasuusin lahaa xagga sportska aad ay khuseysay inaad Yuusuf Nuux Tarase noogu magacaawdo wasiirka wasaaradda ciyaaraha maadaama uu yahay nin u dhuun daloolo wax badan ka fahansan isla markaana la fagurkeeda iyo nidaamkeeda isagu haya. baaqyadaasi marka laga tago inta badan madaxweynayaashii soo maray Somaliland waxa ay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha u soo iman jireen mas'uuliyiin aan ehel u ahayn bahda ciyaaraha isla markaasina dhaafay da'da dhalinyarada kuwaas oo ay adag tahay in ay fahmaan baahiyaha kala duwan ee qabaan dhalinyarada iyo bahda ciyaaruhu. waxaase isha lagu hayaa cidda uu wasaaradani u soo igman doono madaxweyne Cirro iyo sida uu uga soo baxo xujada bahda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland ay hordhigeen. haddii uu madaxweyne Cirro u cugto xogaya Yuusuf Tarase inuu noqdo wasiirkiisa arrimaha dhalinyarada iyo ciyaaraha waxa dhaboobaya halkudhigga caanka ah ee the right man for the right position taas oo macnaheedu yahay in shaqadaasi uu igmaday mas'uul ka soo bixi kara. waxaanu maanta garoonka kubadda cagta Xawaadle oo ah garoon fac weyn aanu dhagax dhigaynaa in aanu dhigno roogii iyo wixii kale uu u baahan yahay. sidoo kale waxa murashax madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi isagoo dhiiri gelinaya dhalinyarada iyo ciyaaraha uu ballan qaaday inuu garoomo fara badan oo kalena
la dhisi doono haddii ilaahay idhaahdo iyo qaar kaloo fara badan sida Hargeysa Stadium oo isaguna u baahan in laga bedelo roogga